daawade inta aan bilaabin ka hor haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xidhan kanaalka fadlan like saar muuqaalka si ay noogu noqoto dhiirigelin haddii aad ku cusub tahayna subscribe saar oo nagu soo biir gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaalada cusub. Assalaamu calaykum. iyadoo ay ka faa'iideysanayeen dawladda burburtay ee bad iyo baritoona war ka hayn maalinka ka dambaysa cadowga dhulkeenu waa soo taraya oo waa badanaya iyadoo si hoose iyo si muuqataba la isku wada gaarsiinayo dhulkan sidii hilibka suuqa wadan ee dadkiisina mooganaanta ku jiraan in sidii doona laga yeelo. warbixinaha qaar ayaa waxay sheegayaan in badaha Soomaaliya lagu shubo 4 milyan oo tan oo sun ah. sidoo kale warbixin la soo saaray 2016 waxay sheegaysaa in 4 dabshid kadib oo ku beegan 2020 aan badaha Soomaaliya wax kalluun ah lagu guran karin sababtoo ah kalluunka dhamaantii waa uu wada sumaysan yahay. kullay sunta badaha lagu aasay maalinka ka dambaysa way soo kaahaysaa oo khatarteedu waa ay sii kordhaysaa oo isku mid ma ahan markii lagu shubay badda iyo hadda oo muddo waqti dheer ah u dhaxeeyo maadaama sunta lagu cabeeyay foostooyin marka ay cimilada kulul ee Afrika la falgalaana daadanaya oo gaaraya bad iyo bari iyo hawadaba. sida aynu hore ugu soo sheegnay dhacdadii dalka Nigeria waxa sidoo kale xusid mudan bishii February 2005 warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan deegaanka ayaa sheegtay in aafadii badgariirka ee dhacday ay soo gaadhay badaha Soomaaliya taas oo sababtay in ay firdhiso qashinka iyo sunta ku duugnaa badaha guntooda hoose sababtayna khatar caafimaad oo baaxad weyn leh oo soo food saartay mujtamaca Soomaaliyeed. afhayeenka hay'adda Nick Natul isagoo u waramaya idaacadda VOA-da 2015 waxa uu yiri in 15 dabshid ee la soo dhaafay shirkado reer Yurub ah iyo kuwa kaleba ay Soomaaliya u isticmaali jireen goobta lagu duugo qaybo kala duwan oo sunta nooca loo yaqaan nuclear-ka iyo qashinka loo yaqaan hazardous wastes. waxa uu intaas raaciyay waxa halkaas ku jira sunta shucaaca ee uraniumta, sunta maduulka ee dhiriska, sunta biraha ay kamid yihiin mercuryga, qashinka warshadaha, qashinka cisbitaalada, qashinka kiimikada iyo sun kasta oo la magacaabo. sidoo kale waxa uu intaas ku daray khabiir qamar sanaaciga yaqaan ma aha inaad noqotid si aad u fahantid sababta ay sidaas u sameynayaan ee waa deganaansho la'aan halkaas ka jirta awgeed. kadib waxa uu sidoo kale sheegay in shirkadaha reer Yurub ay halkii tan ee sun ah ee lagu duugay ama lagu aasay Soomaaliya ay ka bixiyaan $2.50 halka ay ka bixin lahaayeen $250 haddii suntaas lagu aasi lahaa qaaradda Yurub. sunta lagu shubay Soomaaliya kaliya kuma eeka badaha ee xitaa waxa lagu aasay bariga ama dhulka. waxaa la sheegaa in dekadaha qaar sida dekada Ceel Macaan Warsheekh uu Talyaanigu u dhisay si uu sunta ugu aaso. sidoo kale wadooyinka qaar sida wadada Boosaaso ilaa Garowe u dhaxaysa waa lagu aasay. waxa uuna afhayeenka hay'addan ilaalada deegaanka ee qaramada midoobay uu intaas ku daray in badgariirkii ka soo bilowday Aasiya uu burburiyay ama kala furfuray haamihii ama fiistooyinkii iyo waxyaalo kale oo suntaas ku jirtay. kadibna waxa hirarka badda ay sunta u xambaaraan ilaa 10 kiiloomitir oo gudaha dalka ah. waxa uuna sheegay inay macquul ahayn in la ogaado inta tan ama tirada waxyaalaha ay suntaasi ku jirto ee yaala xeebaha Soomaaliya, laakiin waxa uu sheegay in arrintu ay halis weyn tahay. waxa iyaduna jirta hadal uu 5tii bishii June sanadii 2005 oo ku beegnayd maalinta deegaanka ee adduunka hadal uu yiri mar laga wareysanayay dhibaatooyinka xagga deegaanka ee Soomaaliya haysata. xoghayaha joogtada ee wasaaradda deegaanka iyo maareynta aafooyinka Dr. Qaasim Xirsi Faarax inta waxa ka sii daran sunta la taaban karo ee lagu aasay ama lagu daadshay bad iyo bariba siiba mid muuqata ee dul ceegaagta xeebaha dalka. waxa soo dhanna waxa ay soobayaan cudurro halis ah oo si tartiib ah uga dilaaca dalka iyagoo waxyeeleynaya kulli dadka dunyada iyo daaqoodaba. teeda kale ta ugu daran waa in dib dambe loogu noolaan doonin geyiga haddaan iminkaba la daba qaban oo laga deyn waxyeelada deegaanka. waxa haddaba qof walba oo Soomaaliyeed isweydiinaya oo maankiisa ku soo dhacaysa marka aynu arrimaha sidaas u halista ba'an ee inagu habsaday ka soo hadalnay talow miyaanay mushkiladani xeerar qabta lahayn oo xakameeya. warcelintu waa cagsi oo waa ay jiraan xeerar iyo heshiisyo in ay xakameeyaan loogu talagalay, laakiin adduunka maanta aynu noolnahay sharcigu wuxuu qabtaa midka tabarta daran. horena Soomaali waxay ugu mahmaahday miskiin baa miska la fuula leh. waxaa jira xeerar caalami ah oo loogu talagalay xakameynta iyo ka faa'iideysiga qashinka
sunta halista ah ee warshadaha marka ay xuduudaha u kala gooshayaan kaydinteeda iyo wixii la mid ah. Heshiisyadaas waxaa ka mid ah axdigii Basel ee ay dabshidkii ama sanadii 1987 ay ku kala saxeexdeen 116 wadan oo markii hore ka koobnaa 29 qodob iyo 7 lifaaq ayaa bishii Noofambar 2000 waxaa laga tuuray 9 lifaaq waxaana saxeexay 140 dal. Soomaaliyana ka mid ahayn dalalkaas saxeexay heshiiskaas. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha deegaanka ayaa iyaduna waxay qaadatay baaqi ka soo baxay Qaahira kaasoo tilmaamo aqoon ku dheehantay ka bixiyay sida ugu habboon ee loo maareyn karo sunta halista leh marka loo eego dhibaatada deegaanka ku imaan karta. waxyaabaha xeerka Qaahira meelmariyay waxaa ka mid ah hadiiba ay dhacday in laba wadan ay ku heshiiyaan kala iibsiga qashinkaas ay tahay waajib saaran ka dhoofinaya inuu hubiyo in halka qashinku ku dambeyn doono ay tahay meel ku habboon oo khatar aan ka imaanayn ama se khatarta ay ka imaanaysaa ay tahay mid yar marka laga hubiyo wajiyo kala duwan. dabshidkii 1989 golaha loo wada dhan yahay ee qaramada midoobay kalfadhigiisii 44aad wuxuu ku guddoonsaday qaraarkii tirsigii ahaa 44/226 oo isaguna loogu talagalay xakamaynta dhibka qashinkaasi dhoofintiisuna keento. waxa kale oo ka mid ahaa axdiyadii UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea iyo London Dublin Convention oo iyaguna dhacay sanadii 1989 ayaa ujeedadeedu ahayd in laga hortago in dib loo geysto deegaanka dabiiciga ah ee badaha adduunka. heshiiskii London waxa uu si gaar ah u khuseeyay sidii badaha looga badbaadin lahaa sunta iyo qashinka haraaga nuclear-ka ee radioactive-ka loo yaqaano. heshiiskii Lamo ee u dhaxeeya wadamadii hore u ahaan jiray gumaystayaasha adana ku bahoobay midowga Yurub iyo wadamadii la gumaysan jiray ee Afrika, Latin America iyo jasiiradaha badweynta Pacifica ayaa wuxuu xaaraantimaynayaa in qashinka halista ah loo dhoofiyo wadamada soo koraya. fiiro gaar ah wadamada soo koraya ee ay markaa ka dhawaajiyeen waa Asia, Afrikana hadalkeeda badda. waxaa xusid mudan haddaba iyadoo qawaamiintani ay jiraan haddana ay wada dhaqan gashay ayaa haddana waxaa jira wadamo muhiim ah oo ka meeraysanaya ama ka cagajiidaya inay saxeexaan heshiisyadan kuwaasoo u badan kuwa sunta daadiya rabana inay ka tuldallaabsadaan xeerarka oo budhcadnimo boob ku joogaan iyo weliba kuwa Afrikaan ah oo raba ka macaashida qashinkaas halista daran. waxaa kaloo nasiib darro ah in dhammaan ahdiyadan iyo heshiisyadani ay ku fashilmeen in la xakameeyo dhibka ay arrintani halista ahi dhashay. Afrika ayaa dunida ugu wada filan halkaasoo dowladaha qaarna si cad oo ogaal ah ugu xadgudbay xeerarkaas sida Benin iyo Ghana iyagoo daliishaday ama cuskaday inay doonayaan inay qashinka reer galbeedka qaataan si ay uga samato baxaan dhaqaale yarida haysata ee ku habsatay dalalkooda. wadamo kalena sida Soomaaliya aysan dowladba lahayn muddo aad u dheer iyo qaar horeba u sii joogay dalka oo hunguri iyo wax la mid ah ka qaalib noqdeen oo diirna xaayiba aanu ku oolin. waxay u muuqataaba arrintu in Soomaalidii laga hayo ciidooda oo shisheeyuhu ka horjoogaba. waxaa iyadna xusid mudan hadal uu yidhi Axmed Cabdullaahi oo ahaa wakiilkii UN-ka Soomaaliya mar uu ka hadlay arrintan qashinka. waxa uu yidhi shirkadaha qashinka ku quba Soomaaliya waxay lacag badan siiyaan wasiirada dawladda ku meel gaarka ah dawlad goboleedyada jira madaxda maleeshiyo qabiileedka. waxauna ku daray Soomaalida maanta waxaa ku yar inta damiirka iyo wadaniyada u haya dalkooda iyo dadkooda. wax kastana waxaa kala weyn in jeebkiisa lacag gasho.